waxaan ka codsaday in iskuul la geeyo la igama markii hore la igama diidin oo 2 bilood ayaa lacagta la iga bixinayay markii dambe oo bishii saddexaad ay gaartana waxa la ii sheegay in ay awoodin lacagta iskuulka marka waan iska daayay fasalkii 10aad markaan marayo oo halkaan aan ku hakiyay haddana sanadkaas wuu dhaafay sanadkii dambe ayaan helay oo meelo aan galgalay oo shaqo yar aan helay waan iska bixiyay ilaa form 3 form 4 marka la gaaray oo iga harsan tahay examkii hal bilo qura oo imtixaankii weynaani ugu soo fud leeyahay ayaan waxaan waayay qarashaadkii lacagta hakadna iga yimid meeshan ka shaqeynayay ma sha Allah waxaan la kaashtay macallimaha maamulaha iskuulka macalinka waxaan u sheegay in aan haysanin wax qarash ah oo iga caawiyo dhankaasi dan kadib markii uu iga bixiyay iskuulkii waan dhameystay ma sha Allah markaan dhameystay waxa igu adkaatay shahaadadii aan doonan lahaa markay aad igu adkaatay shahaadadii dib ayaan iskaga dhigtay raqam juluuskii ayaan jaamacadda ku tagay markaan jaamacadda ku tagay in badan way igu adkeeyeen laakiin waxa ii gambisay haddana qarashkii aan jaamacadda ku tagi lahaa buugaagtii waxa laga doonayaa maalin kasta maadaama uu sanadka cusub lagu jiro oo jaamacaddan ay kugu cusub tahay markasta buug ayaa laga doonayaa maalin kasta warqad maalin kasta waa u dul qaadan waay markii dambe hakad ayaan iska geliyay jaamacadda dan markii dambe adiga oo semesterkii koowaad oo idaafi rabay ayaan qarash helay oo waxaan ka shaqeeyay warbaahinta ma sha Allah ما شاء الله هذا وحنا أشقيا maamulka gobolka Hiiraan waxaana u shaqeeyaa qaybta dawladda hoose ayaan ka shaqeeyaa waxaana ahay qasnajiga dawladda hoose aad baan ugu faraxsanahay noloshayda dhibaatadii soo martay hadda ma sha Allah waan ka meertay inkastoo waxyaabo badan ay iga dhiman yihiin nolosha dadka iga dambeeya ama gabdhaha iga dambeeyo waxaan ayagana ku dhiirigelin lahay caqabado badan way ka hor imaanayaan dabcan gabar labadeeda waalid la joogin waxyaabo badan ay u baahan kartaa marka waxaan dhihi lahaa caqabad kasta oo kugu soo food leh waa inaad ka foojignaata